asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkana oo aanu ku eegi doono khilaafaadka iyo ismariwaaga u dhexeeya wadamada imaaraadka carabta iyo sacuudi arabiya oo berihii ugu dambeeyey uu dhexdooda khilaaf ka taagnaa. Wadamadan ayaa waxa ay ku jiraan golaha iskaashiga ee wadamada khaliijka carabta. Waxa ay ahaayeen saaxiibo muddo fara badan, isla mar ahaantaasna waxay xulafo ku ahaayeen sidii loo meel marin lahaa, isla mar ahaantaasna loo hagaajin lahaa wadamada ay iyagu doonayeen in ay gacanta ay ku dhigaan, isla mar ahaantaasna ay doonayeen in xiriirkoodu uu sii wanaagsanaado marba marka ka dambeysa. hase yeeshee labadan wadan waxaa sanadihii ugu dambeeyey khilaafaadyo uu soo kala dhexgalay arrimo ku aadan sidii loo waajihi lahaa loona maareyn lahaa siyaasadaha wadamada yemen, libiya iyo wadanka syria. hase yeeshee wadanka imaaraadka carabta oo waayadan ugu dambeeyey si aada ugu cadcadaa siyaasada wadamada bariga dhexe iyo kuwa carabta ayaa waxaa haatan uu u muuqdaa mid sii wada xiliftanka iyo xifaalaha kala dhexeeya wadanka sacuudi arabiya, kaasi oo u muuqda inuu yahay awoodda ka jirta wadamada khaliijka carabta. Inkastoo ay iska soo kaashadeen waxyaabo aada u fara badan, waxaa ka mid ahaa in wadanka qatar ay geliyaan gebi ahaantiisba xayiraada ku aadan dhinaca siyaasadda, ganacsiga iyo arrimaha bulshada ama isu socdaalka dadka qadariinta inay soo aadaan wadamada imaaraadka carabta, sacuudiga iyo wadamada kale ee sacuudiga iyo imaaraadka ay gacansaarka ay la leeyihiin oo kamid a wadamada carabta sida wadanka masar iyo dhowr wadan oo ku yaala isla bariga dhexe. Wadanka imaaraadka carabta waxa uu doonayay in siyaasada dalka yemen looga dambeeyo isaga, maadaama ciidamo fara badan ay ka joogaan koonfurta dalka yemen. hase yeeshee sacuudiga oo baqdinta ugu weyn ka qaba kooxda xootiyiinta ee dalka yemen, waxa isna uu doonayay in siyaasada wadanka yemen uu isagu gacanta uu ku dhigo. hase yeeshee waa ay ku guuldareysan labada dalba, waa sacuudiga iyo imaaraadka carabta. imaaraadka waxa uu doonayay in koonfurta dalkaasi uu noqdo, waa dalka yemen, dal ka madax banaan dalka yemen intiisa kale, waxaana haatan ay u muuqataa in dhowaanaha kana ay ku dhawaaqi doonaan in ay ka go-een dalka yemen intiisa kale. Dhinaca kalena waqooyiga dalka yemen waxaa dowladda sacuudiga ay kusoo qaadayeen dagaalo, isla mar ahaantaasna weeraro ay kusoo qaadayeen waxa ay ku bartilmaameysanayeen kooxda xuutiyiinta ah oo ah koox ay taageerto iiraan iyo wadamo kale oo iyagana ku yaala bariga dhexe. Kooxda xuutiyiintana waxa ay isla mar ahaantaas laftirkoodu ay gantaallo ay la beegsanayeen tan iyo sanadkii 2014 wadanka sacuudiga magaalooyin fara badan oo ku yaala oo ay kamid tahayba magaalada caasimada ah ee riyaad. Dalka sacuudi arabiya waxa uu doonayay sanadahan in uu gacanta uu ku dhigo dhinaca saliidda, inkastoo labada dal ee imaaraadka carabta iyo sacuudiguba uu si aada ay u doonayeen labadaasi dalba aan iraahde in ay hoos u dhigaan ku tiirsanaanshohooda dhinaca saliidda. hase yeeshee sanadkan waxaa soo ifbaxaya in ururka marka magaciisa loo yaqaano OPEC, kaasi oo iibgeeya saliidda ama ay ku jiraan wadamada iibgeeya saliidda ama ka ganacsada saliidda, ay ku tashadeen in hoos loo dhigo wax soo saarka saliidda, isla mar ahaan si kor ay ugu qaadmato ama si ay sare uga kacdo qiimaha la kala siisto barmiilka shidaalka. Wadanka sacuudi arabiya waxa uu lahaa talada ugu dambeysa dalka imaaraadka carabta. haatan imaaraadku waxa uu muuqdaa mid aan talooyin fara badan ka qaadan wadanka sacuudi arabiya, waxaana taas caddeyn u ah arrinta ku aadan heshiiska imaaraadku uu la galay israel, taasi oo dhinacyo badan taabaneysa sida ganacsiga, xiriirka siyaasadeed oo la hagaajiyo iyo in wadanka imaaraadka carabta dadka u dhashay ay mar walba booqan karaan israel, halka israailiyiintuna ay soo booqan karaan wadanka imaaraadka carabta. Wadanka sacuudi arabiya waxaa haatan u muuqdaa inuu meel cidla ah uu taagan yahay, isla mar ahaantaasna uusan joogin meel uu kasoo noqdo. Wadanka mareykanka ayaa haatan cadaadis xoogan waxa uu ku saarayaa
arrimo la xiriira dilkii wariyaha Jamaal Khashoggi loo geystay oo Sacuudiga uu u geystay, kaasi oo ka dhacay dalka Turkiga. Waddanka Sacuudigana haatan waxa uu muuqdaa mid khatar ku haya nidaamka free zone-ka ee waddanka Imaaraadka Carabta oo ka mid ah wadamada ugu badan ee ka macaasha amaba ganacsigoodu ku tiirsan yahay hanaanka free zone-ka. Arrintan haatan soo cusboonaatay ee ku aadan dhinaca qiimaha shidaalka ayaa wadamada OPEC waxa ay ku heshiiyeen horay in sanadka 2021 iyo sanadka 2020 qiimaha la kala siisto barmiilka uu noqdo $70 iyo ka badan. hase yeeshee Sacuudiga waxa uu doonayaa in uu soo saaro shidaal aada u badan. Imaaraadkan waxa ay doonayaan sidoo kale in ay shidaal fara badan ay soo saaraan. 8% ayaa hoos loo dhigay shidaalka uu soo saaro waddanka Saudi Arabia, ama la gaarsiiyay aan iraahdee 8%, halka waddanka Imaaraadka Carabta 5% la gaarsiiyey wax soo saarkiisa. waxaana Imaaraadku ay sheegeen intaasi aysan ahayn cadaaladda ay ku dhaqmeen wadamada OPEC oo ay u aragto Imaaraadka in si gooni ah loo cadaadinayo Imaaraadka. daawadayaal, intaasi waxaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan oo aanu kaga falanqoonaynay khilaafaadyada cusub ee waddanka Sacuudiga iyo Imaaraadka haatan kasoo cusboonaaday. waxaana ay muuqataa khilaafaadyadani inay marba marka kasii dambeysa ay kor sii aadayaan, lagamana warqabo halka iyo meesha ay ku waabariisan doonto. waxaana waddanka Saudi Arabia uu u muuqdaa mid haatan taagan meel cidlo ah, laakiin waxaa la eegaya dhacdooyinka kale ee soo socda ee ku aadan arrimaha sida uu waxyeeli doono madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden oo sanadkan la doortay. intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkana mid lamid ah. intaynu isaga imaan doonno waxaan idinku dhaafiyaa sidaas iyo nabadgelyo.